saacadihii ugu dambeeyey waxaa si weyn ugu baahay baraha bulshada Soomaalida iyo kuwa caalamka hadalhaynta in Jokerka reer Belgium Eden Hazard uu qaatay diinteena suuban ee Islaamka. Haddaba maxaa ka runa sheekadan? Ma runba in xidigan alla uu soo hanuuniyay? Xaqiiqooyin dhammaystiran ayaan muuqaalkan idinkugu soo gudbin doonaa. ka horse inta aan guda gelin muuqaalka daawad haddii aad ku cusub tahay page-ka like-de siina share garee muuqaalkan si uu gaaro saaxiibo badan. muuqaalku aad like saarto waxay sidoo kale naga caawinaysaa in saaxiibo badan uu hortago maqaalkeenan. hadalhaynta inuu ka baxay jahligii iyo diinta shayaadiinta Jokerka reer Belgium iyo wiilka kooxda Real Madrid Eden Hazard waxay ahayd sheekada ugu badan ee gilgishay baraha bulshada dhowr iyo 12 saac la soo dhaafay. waxaase iyakuna jira su'aalo badan oo la iska weydiinayo sax ahaanshaha sheekadan. Eden Hazard waa xidig akhlaaqiyan aad u wanaagsan, waxaana marar kala duwan uu waqti la soo qaatay xidiga aad ugu adag haysashada diinta Islaamka oo uu ka mid yahay mucjisada madoobe qadka dhexe Chelsea N'Golo Kante iyo kuwa kale. sheekada xiisaha goonida xambaarsan ayaa saa in Eden Hazard uu waqti aad u fog qaatay diinteena suuban ee naxariista iyo nabadgelyada xambaarsan, halka Soomaalida sheekadan ay aad ugu soo dhax baahday 24 saac ee cimrigeena waqti ka go'ay ugu dambeeyay. haddaba sidee aan ku jilciyo sheekada? Eden Hazard waxa uu u dhashay dalka Belgiumka, diinta labaad ee dadku ugu badan waddankaas ay haystaan waa diinta Islaamka. Hazard waxa uu ku soo barbaaray qoys laga wada haysto diinta Islaamka iyo Kristanka, waxaana uu door biday qaadashada diinta Islaamka. waxaa su'aalo badan dunida iska weydiisay diinta uu haysta Eden waqti aad u fog. majaladaha caalamka ayaana su'aalo badan hordhigay qaar ka mid ah ehelada Eden Hazard. mid ka mid ah qoyska Eden ayaa laga soo xigtay inuu yiri Eden Hazard waxa uu ku soo barbaaray qoys muslim iyo masiixi ah, taasina waxay saameyn ku yeelatay noloshiisa maadaama uu markii dambe qaatay diinta Islaamka. waa muslim ma ahan masiixi. uma baahnid in aad ka dhalato qoys muslim ah si aad u ahaato qof muslim ah. uma baahnid magac muslim si aad u noqoto qof muslim ah, ayuu yiri qofkan ka mid ahaa ehelada Eden Hazard ee sheegay in Eden waqti aad u fogba uu qaatay diinta Islaamka. Eden Hazard waa mid mar walba la duuban muslimiinta, waxaa si joogto ah uu hambalyadooda ugu diraa maalmaha farxadeed iyo munaasabadaha ciidaha iyo maalmaha Ramadaanka, isagoona waajibaadkiisa xajka soo gutay. dhanka kale majalada Daily Mail ayaa shaacisay liiska xidigaha ugu magaca weyn kubadda cagta ee haysta diinta Islaamka waqti aad u fog. sida kaaga muuqato qoraalkan, xidigaha wadamada ay ka haystaan ayaa sidoo kale ku xusan. dhinaca Faransiiska waxaa laga soo qaatay Karim Benzema iyo Paul Pogba, xilligaasi ma uusan ahayn mid aad u shacbaxsan. xidiga qadka dhexe ee N'Golo Kante. Germany waxaa laga soo qaatay Mesut Ozil, halka Belgiumka xidiga uu ka mid yahay. Eden Hazard waqtigaasi aadka u fog Daily Mail ay ka daabacday inuu ka mid yahay xidigaha ugu magaca weyn ee haysta diinta Islaamka. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan, sii share garee oo gaarsii saaxiibadaada. nabad ahow daawade.